bishii July 271 askari oo dhibbo ah ayaa iska soo xaadiriyay akademiyadda ciidamada ilaalada xeebaha Mareykanka halka oo lagu tababaro ciidamada ilaalada xeebaha Mareykanka. waxa ay ahayd bilowgii dhibboga xagaaga waa barnaamij tababar 7 usbuuc oo adag oo dhammaan ardayda looga baahan yahay inay dhammaystiraan si ay ugu aayaan mustaqbal balse sanadkan iyadoo uu jiro cudurka faafa ee COVID-19 arrimuhu aad ayay u kala duwan yihiin ha yeeshee tababarku waa uu sii soconaya. We've never done this before. As the old adage goes, man plans, fate laughs. So we're making adjustments as necessary. We're charting uncharted waters right now. This whole first squad, get back! weliga yamaanu yeelin sida horeba loo yiri qorshaha dadka qadarku uu ku qoslaa sida daraadeed waa dadaalaynaa intii aanu karno waxaanuna qorsheynaynaa biyihii aan qorshaysnayn hadda ka hor. kadib markii ay soo galeen akademiyadda dhammaan dhiboogu waxay galeen 14 maalmood oo ay xadidan tahay dhaqdhaqaaqooda waxaana la marsiinayaa tijaabo caafimaad oo COVID-19 ah lagaga baarayo inta aanay bilaabin tababarkooda 270 arday waxaa la marsiiyay 14 maalmood 2 goor oo tijaabo caafimaad ah waxayna noqotay in aan qofna cudurka laga helin imtixaan kasta wuxuu noqday mid taban. Nobody want to be here. Prom is finally over. fasalka 2002 maalinta koowaad ee dhiboogu waa maalinta 15aad oo ah marka tababarkoodu bilaabmayo kadib markii ay xareysnaayeen 2 usbuuc. maalintu waxay ku bilaabanaysaa quraac. Get in line, get your food! Go! balse inta aanay cunin waxaa joojinaya dhibooga qaar ka mid ah tababarayaasha oo ay weheliyaan qaar ka mid ah da'yarta akademiyadda. waxayna barayaan waxa laga rabo inta uu socdo dhibooga xagaagu. dhibooga waxaa la weydiinayaa inay kala aqoonsadaan tababaray taasoo ay fududahay in la sheego intii la qaban lahaa. waxay ka caawinay isku dhexyaaca waxayna tusay ardaydu inay aqoonsadaan inay yimaadeen jawi kale ayna tahay in ay la qabsadaan qiyamkayaga. waa in ay na tusaan in ay ixtiraami doonaan dumarka ragga kuwa dhankooda midig iyo bidix jooga ee shaqada la haya iyo guud ahaan waddanka ay u shaqayn doonaan. When you're performing the test, you will not be required to wear a mask. quraacda kadib amarka u horeeya ee shaqadu waa barashada jimicsiga jidhiska ama BFE-da. Test will begin in 5, 4, 3. saddexda qaybood ee jimicsigu wuxuu ka bilaabmi push up, Up, down, Conducted at a cadence. 2, down. It's on your core. sad push up waxaa raacsan qori iska dhig. Let's go. Let's go, Red. mayl iyo badh orod ah. Let's go. Keep running. Push it, let's go! kadib BFE qaarka laboodka ah waxay tegayaan timajaraha si loogu xiro. timajarayaashu waxay gaashaan ka dhiganayaan maaskaro iyo waxyaalo kale oo qofka ka xigsada mid kasta marka loo xiro kursiga uu ku fadhiyay waa la nadiifinayaa. You need situational awareness, Swap Hop. Aye, sir! When somebody walks past you, you should be able to see them in the peripheral vision. If I'm over here and I'm walking, do you not notice that there's a blue blob at the bare minimum? mid ka mid ah waxyaalaha ugu muhiimsan ee agabka dhiboogu waa haysashada buug yar oo buluug ah kaasoo loo yaqaan ilayska ordaya. Keep studying! dhibooga waxaa laga filayaa inay xifdiyaan boqolaal xaqiiqooyin ah oo buugga laga helo isla markaana daqiiqad walba la weydiin doono. Where's Article 6 of the Code of Conduct? Sir, Article 6 of the Code of Conduct is, I will never forget that I'm an American. wax kasta oo aad ugu baahan tahay dhibbo ahaan waxay ku kooban yihiin buuggaas yar waana in aad ku wadato jeebkaaga. The ethos of the Coast Guard. The Coast Guard ethos is, I am a Coast Guardsman. keliya waa buugga aqoonta oo la isku miisaamay si aad halkaa u fadhiisato oo u akhrido oo aad wax u barato oo naftaada waqtigeeda u horumariso waa qalab aad muhiim ugu ah
dibooga xagaaga. dibooga waxaa la siinayaa dirays ay ku jiraan 3 nooc oo kaba ah: buud, kabaha ciyaaraha iyo kabaha doomaha lala fuulo, kuwaas oo dhaqso loo siin doono. dibooga xagaaga waxaa la baro waxaa ka mid ah badmaaxnimo. diboog kasta ma ahan badmaax xilliyeysan, sidaa daraaddeed dhammaantood waa la barayaa aasaaska doonaha. isla markaana waxay si dhaqso leh u geli doonaan doon 13 lugood ah oo loo isticmaalo tababarka. markay dhalinyaradu ka qalin jabiyaan akadeemiyadda ilaalada xeebaha, waxay aadi doonaan shaqada oo waxay bilaabayaan inay u adeegaan qaranka iyagoo ah saraakiil ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha Mareykanka. intooda badani waxay aadi doonaan oo ka mid noqon doonaan kuwa jara macna ahaan xeebaha dalka iyo kuwa adduunka oo dhan. qaarkood waxay aadi doonaan dugsiga duulimaadka, waxayna isu diyaarin doonaan inay duuliye noqdaan. mid kasta oo ka mid ahi wuxuu leeyahay shaqo, mid kasta oo ka mid ahna wuxuu bilaabi doonaa shaqada maalinta koowaad. akadeemiyadda ilaalada xeebaha Mareykanka waxay ku fadhidaa 103 hektar oo ku teedsan hareeraha webiga Thames ee New London, Connecticut, oo qiyaastii kala badh ahaan u dhaxaysa Boston iyo magaalada New York. It is the United States Coast Guard Academy, whose gates are open only to young men with sound bodies, stout hearts and alert minds. waxbarashada akadeemiyadda waa lacag la'aan, laakiin askartu waxay ballan qaadaysaa inay si firfircoon 5 sano u shaqayn doonaan kadib marka ay qalin jabiyaan. askarta waxay helayaan mushahar dhan $150 bishii. You literally got into the United States Coast Guard Academy. It's academic excellence and you don't know your right from your left. That is unacceptable. isku celceliska la ogolaa wuxuu ahaa 3.7 GPA, aad ayayna u sarreysay. ha yeeshee 13% codsadayaasha ayaa gaadhay heerka. akadeemiyaddu waxay dumarku inay soo galaan ogolaatay 1976. maanta 36% oo askarta akadeemiyaddu waa dumar. Yes, ma'am. Go, let's go. 35% qoomiyadaha laga badan yahay, laakiin akadeemiyadda ayaa dhawaanahanba waxaa lagu hayay baaritaan sababtoo ah waxaa waaxda kormeeraha guud ee amniga gudaha ay ku qeexday warbixinteeda inay ku guul daraysatay inay si sax ah wax uga qabato cabashooyinka la xiriira isir nacaybka ee dhacay intii u dhaxaysay 2013-2018. halkan ma aanan joogin markii kiisaskaasi dhaceen, laakiin wixii aan ka qaadanay taas waxay ahayd daqiiqad tagtay, waxayna ahayd cadaalad darrada jinsiyadeed oo ina soo martay ummad ahaan. wax si aan u baahannahay inaan tallaabo qaado, waxaan u baahannahay inaan horay u soconno. hore uma soconnee. waxaan u malaynayaa in warbixintu ay timid waqti muhiim ah si ay inoogu wargeliso bulsho ahaan. waa in aynu wax ka barannaa, waa in aynu hore uga soconnaa. If you come out here and are not respectful and do not perform, we will find something to do with this time, aye? Aye, sir. sii socoshada dibooga xagaagu ma aha in diboo walba laga baarayo xanuunka COVID-19, balse akadeemiyaddu waxay samaynaysaa hab ilaalin ah. habkaa oo qaybo ka mid ah dibooga iyo askarta la baarayo. Can't guarantee there'll be no COVID, and we know that there will be COVID, but what you want to do is put systems and structures in place to help reduce the likelihood that it'll be transmitted. Aye, sir. bilaabidda ay madaxda mustaqbalku bilaabeen shaqadooda ah ilaalinta xeebuhu, misna sadcaalkoodaasi wuxuu ku bilaabmay si ka duwan koorso ka horreysay si ay ku bilaabatay. waxaan u malaynayaa inay ka fikiri doonaan tan oo ay dib u eegi oo ay odhan waxay ahayd shaqo adag, laakiin waanu soo dhaafnay oo waanu isla qaadanay maxaa yeelay isla jirkeennaynu ku xoog badannahay. waxaana u malaynayaa inay u arki inay tahay sharaf iyo sumcad.